Somaliland oo dalab culus soo saartay kadib hubkii lagu dhacay magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud wuxuu yahay baaqa ay u dirtay beesha caalamka maamulka Somaliland. Warbixintan ayaan ku lafaguri doonaa daawadayaal basmarka muuqaalka la grey si share grey saaxiibadaadna la wadaag mahadsanid. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa waxaa looga hadlay hubkii lagu dhacay waqooyiga gobolka Galgaduud kaas oo u gacan galay shacabka ku dhaqan gudaha degmada Cabudwaaq. Somaliland ayaa walaac ka muujisay hubkaasi waxayna tilmaamtay inay ka imaan karto halis saameyn karta gobolka iyadoo intaasi ku dartay in lagu degdegay qaadista cunaqabateyntii hubka ee laga qaaday Soomaaliya. dhacdadii dhawaan ka dhacday magaalada Cabudwaaq oo ay dad reed ah iyo maleeshiya beeleed ay ku qabsadeen hub iyo saanado kale oo badan oo ay ka heleen dowladda Muqdisho ayaa waxa ay muujinaysaa xaalad adag oo dhanka ammaanka ah ayaa lagu yiri warka qoraalka ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland. sidoo kale Somaliland ayaa tilmaamtay inay ka digayso halis ka dhalan karta hubkan oo ay xustay inay gaari karto wadamada diriska ah siday hadalku u dhigeen. waxaa kale oo ay ka dalbatay beesha caalamka inay dib u eegis ku sameyso go'aankii cunaqabateyntii hubka looga qaaday Soomaaliya bishii December ee sanadkii hore 2023. horey dowladda federaalka Soomaaliya oo uga hadashay hubkan ayaa sheegtay inay dalkan soo geliyeen ganacsato si sharci darro ah uga ganacsato hubka kadibna ay ka war heleen ciidamada ammaanka balse markii ay qabteen hubkaasi ay wadada u galeen maleeshiyaad hubeysan sidaasna lagu biliqeystay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale intaasi tibaaxday inay ka go'an tahay soo celinta hubkaasi isla markaana ay tilaabo ka qaadi doonto cid kasta oo ku lug yeelata falkaasi. si kastaba hadalkan ka soo yeeray maamulka Somaliland ayaa imaanaya iyadoo weli ay taagan tahay xiisadii ka dhalatay hubkii lagu dhacay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. waad ku mahadsan tahay daawade haddii aad halkan nala soo gaartay waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka laag saarto siina share gareyso boggan aad follow tiraado saaxiibadaadana aad la wadaagto muuqaalkan mahadsanid.